salaada soo dhaqaaqdeen adika ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale kuwa deegaanka gobolka Hiiraan ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka waxay ka sameeyeen aagaga webiga Shabeelle gaar ahaan jiinka webiga oo la sheegay in beero ku yaala halkaasi ay ku dhumaalaysanayeen al-shabaab dagaal aad u xoogan oo dhexmaray ciidamada dawladda kuwa deegaanka isku dhinaca iyo sidoo kale al-shabaab ayaa la xaqiijiyay in ciidanka dawladda ay kuwa deegaanka ay u soo gashay in gacanta ay ku dhigaan fariisimayaashii al-shabaab iyagoo halka ay ku lahaayeen saraakiil u hadashay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyagu waxay xaqiijiyeen in guul la taaban karo ay ka gaareen howlgalladii lagala wareegay al-shabaab fariisimayaasha dhowrka ee ku yaala gobolka Hiiraan gaar ahaan agagaarka jiinka webiga oo la sheegay in xoog badan ay ku lahaayeen al-shabaab isla markaana halka ay ku dhumaalaysanayeen saraakiisha ayaa sheegay in sida ay silmada ay sii wadaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka oo ay ka sameynayaan gobolka Hiiraan dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan ayaa xilligan waxa uu ka bilowday gobolka Hiiraan oo lagula dagaalamayo al-shabaab ciidanka macawisleedii sidoo kale kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyagu waxay bilaabeen labadii maalmood u dambeeyay diyaar garow aad u xoogan oo la doonayo in goobaha gobolka Hiiraan ay kaga sugan yihiin al-shabaab halkaasi lagala wareego dagaalkii saa ka dhacay xawaariijtu waa lagu jibiyay meelaha aan ugu tagnay waxa ka mid ahay meesha la yiraahdo beero yabaal agagaarkeeda meesha dagaalkii saakay abaara 4 saac ilaa 5 saac ka dhacay waa ku jibinay dad nool waa looga qabtay qoryo waa looga furtay sidaas hadoo la ku idmay cadowga ayuu ku jabay insha Allah haddana waa daba joognaa webigan marsi doonaa meel walba ay galaanna waa ka daba gali doonaa Soomaaliya oo dhanna waa ka saari doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo ama god ha galaano ama gafuur ha duubtaano ama cimilada isku ekaysiyaano meel kasta ay tagaan waa ka daba galaynaa ma day doono maantana waxa waa laga guuleystay qaaran nolosha ku soo qabana tuutooda ban lagu arkay waa isku xaaraya haddana kama hari doono jicibow beero yabaal ilaa halkan waan isku furna maanta haddana on calaay xaasil howlgalka waa lagu jiraa mana laga hari doono insha Allah inta gabar naga dambaysa gabar ma ka hari doono maalmo ka hor gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Cali Jeyte oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dib boorka looga jafi doono howlgalladii hakadka galay isla markaana ay qorsheynayaan goobaha ka maqan gobolka Hiiraan gacanta dawladda in dhawaan ay la wareegi doonaan waxaana soconaya dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo la doonayo in halkaasi lagala wareego al-shabaab waana sababta keentay ay saraakiishu ku sheegeen in howlgallo lagu baacsanayo al-shabaab halkaasi ay ka sameeyaan ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega dhamays balaas xawaare sare iyo internet tayadiisa la hubo ku shuba $17 iyo bar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah waxaa intaas ku dheer adeega nashaad IPTV oo aad ka maqsuudi doonto uga shuba ii dahab kood nambarka xidig hal eber hal 4 gees